Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada kanaalkeena Baadidoon iyo muuqaalkeena maanta. Intaanan u gelin muuqaalkeena maanta, waad ku mahadsantihiin inaad kanaalkeena soo booqateen aadna ku soo biirteen. Maanta waxaan ka hadli doonaa 5 arrimood oo dhalinyaradu ay dayacaan waqtiga dhalinyaronimada, kuwaas oo ay mustaqbalkooda dambe ka qomomeeyaan. Muuqaalkeena waxaan ku sheegi doonaa waxyaalahaas 5 ah, muhiimadooda iyo sida aan maanta uga faa'iideysan lahayn si aanan mustaqbalka uga qomomeyn. Shalayto ama qomomeyn waa in qofku uu ciishoodo sababtoo ah waayista ama dayacidda arrin muhiim u ah darteed. Nolosha qofka bini'aadamka ah waa 3 beri: shalayto, maanta iyo berito. Oraah caan ah ayaa oranaysa sida keliya ayaan 3daas beri uga faa'iideysan karno waa inaan maanta ka faa'iideysano. Shalayto way tagtay, wax walba oo dhacay xitaa haddii aan ka qomomeyno waxba kama qaban karno. Beritana Alle ayaa og siday noqonayso, xitaa ma hubna inaan gaarayno. Maalinta keliya ee aan wax qabsan karno waxay noqonaysaa maanta. Haddaba waa inaan arrimahan ogaano oo aan wax ka qabano si aanan uga shalaacin hadhowto, sidoo kale aan isugu diyaarino mustaqbal wanaagsan. 1. Dhalinyaradu waxay u maleeyaan in waxbarashadu ay ka dhigayso qof hantiile ah. Goobaha iyo hanaanka waxbarashadu waxaa dadka lagu baraa inay faqiir sii ahaadaan. Ujeedkoodu waa inay ku baraan sidaad shaqaale u noqon lahayd. Lama ogola in dadka meelahaas lagu baro lacagta iyo siday u shaqayso. Hadalkan waxaa yidhi qoraaga buugga Rich and Poor Dad Robert Kiyosaki. Waxbarashadu waa muhiim 100%, balse midda lagu barto jaamacadaha iyo iskuulada waxay u qaabaysan tahay inaad noqoto shaqaale. Markii aad shaqaale noqotidna, mushaarka aad hesho wuxuu geli doonaa calooshaada. Weliba wuxuu noqon doonaa damin lagu dhigay. Waqti uma helaysid inaad adigu hal abuur samayso. Weliba ma lihid xirfadii aad hal abuuro ku noqon lahayd. Waxaa lagu soo baray sida shaqo loo helo iyo sida loo noqdo shaqaale wanaagsan oo shaqada si fiican u qabta. Qofku marka uu yahay qof isagu wax dheeraada baran kara ee aan marti u ahayn nidaamka waxbarashada wadamada, ayuu noqonayaa qof hal abuurkiisa soo saari kara. Macquul maahan inaad dhaqaale hesho weliba adigoo shaqaale caadi ah. Shaqaalaha aan caadiga ahayn waa kuwa u shaqeeya si ay u helaan dhaqaale go'an, welibana waqti go'an, si ay iyaguna hal abuurkooda u horumariyaan. Waa inaad fahantaa in shaqaalanimo aysan weligaa kaa dhigayn qof hantiile ah. Arrinta 2. Dib u dhigashada. Dhalinyaradu waxay u maleeyaan inay haystaan waqti badan oo uu hadda cimrigooda bilow yahay. Sidoo kale caajiska iyo qorshe la'aanta ayaa qayb ka ah waxyaalaha keena in arrin aad hadda qaban lahayd aad dib u dhigto, weliba adigoon sheegayn waqtiga saxda ah ee aad qabanaysid, ee keliya oranaya hadhowta ayaan qaban doonaa. Dib u dhigashadu waa in hawl aad qaban lahayd hadda aad dib u dhigto iyadoo waqtigii aad qaban lahayd la joogo. Tani waa caado aan wanaagsanayn oo keenaysa in guuldarro iyo walwal badan ku soo wajahaan. Weligaa intaa wax dib u dhigatay adigoon weli samayn ma la gaaray xilligii lagaa rabay. Waxaa shaki la'aan ah inaad dareemaysid walwal badan, sidoo kale aad raadinaysid marmarsiiyo aan xooganayn, lagana yaabo inaad been sheegto. Beenta iyo marmarsiiyaha ayaa iyaguna ah dabeecado xun oo ay dhalayso dib u dhigashadu. Daraasad ayaa muujinaysa in 80 ilaa 95% ardayda jaamacaduhu ay leeyihiin dabeecadan, taas oo aakhirka ku keenta fashil waxbarasho. Waa in aan maanta baranno sida la isaga jaro ama la isaga ilaaliyo dabeecadan aadka u xun intii aan ka qomomeyn lahayn mustaqbalka dambe. Arrinta 3. Aaminida wax walba oo uu qofku sheego. Inta aan ku jirno xilliga dhalinyaronimada, waxaa la dhaqanaa dad badan. Waxaa badanaa aragnaa dad wax noo sheega oo nawaaninaya. Waa dhibaato weyn inaad aaminto wax walba oo ay dadku kugu yiraahdaan. Dhegeysiga warka lagu sheegayo waa ixtiraam iyo qadarin aad qofkaas siinayso, balse aaminaadda wax walba oo lagu sheego waxay kugu keeni kartaa fashil aad u weyn. Waxaaba macquul ah in lagu lumiyo iyo in fikir khaldan laga dhaadhiciyo oo aad hadhowto ka qoomameysid. Wax xiriir oo weyn kama dhaxeeyo caqli badnaanta qofka iyo da'diisa. Adigoo dhalinyaro ah ayaa waxaa lagaa doonayaa inaad caqligaada kaashatid oo wixii aan kula habboonayn aad su'aal ka keentid. Sidoo kale wixii aadan fikir weyn ka haysan waa inaad raadiso oo aad baaritaan badan ku samayso ka hor inta aadan aaminin.
waxay isku dayaan in qof walba ay raali geliyaan. Qofka dhalinyarada ah wuxuu ku dadaalaa inuu horumariyo garaadkiisa iyo xiriirka kala dhexeeya dadka kale. Wuxuu iska ilaaliyaa khilaafyada iyo isqabqabsiga isaga iyo dadka kale. Balse mararka qaar waxa uu arkaa dad ka xanaaqsan, weliba isaga oo aan garanayn sababta ay dadkaas uga caroodeen. Waxaa macquul ah inuu dadkaas weydiiyo sababta ay uga xanaaqsan yihiin, sababtuna ayba noqoto in dadkaasi aysan ku faraxsanayn dadaalkiisa. Dad badan oo dhalinyarada ka mid ah ayaa si ay dadkaas u raaligeliyaan yareeya ama laga yaabo inay iska daayaan wax ay samaynayeen oo naftooda u wanaagsanaa. Haddaba waa inaad barataa in aysan macquul ahayn in dadka oo dhan aad raali geliso. Waxaa khasab ah inaad la kulmayso dad aan kugu faraxsanayn, waase inaad barato sida dadkaas loola dhaqmo adigoon xumaynayn. Waase khalad weyn in aad dartood uga leexato wax adiga horumarkaaga ah. Arrinta shanaad, ma bartaan sida lacagtu u shaqayso. Dhalinyaradu waxay lacag aad u badan ku bixiyaan wax aan u qalmin, sida labiska iyo baashaal. Sababta keenaysa in lacagtaas badan ay ku baxda halkaas waa in dhalintu aysan aqoon badan u lahayn lacagta iyo qiimaheeda. Lacagtu ma ahan waxa ugu qiimaha badan ee adduunka yaalla, balse waxay ka mid tahay waxyaalaha la qiimeeyo. Wax badan oo aad u baahan tahay ayaad ku heli kartaa ama ku weyn kartaa lacag darteed. Maadaama ay muhiim tahay lacagtu, waxaan u baahannahay inaan baranno sida ay u shaqayso. Waa macquul in aad weydo qof ku bara waxa ay lacagtu tahay iyo qaabkay u shaqayso, balse waxaad ka baran kartaa buugaagta. Sidoo kale waqtiga ayaa ku bari doona. Qoraaga buugga Poor and Rich Dad ayaa waxa uu leeyahay qofka faqiirka ah ayaa lacag darteed u shaqeeya, kan qaniga ah wuxuu u shaqeeyaa helidda khibrad darteed, si khibraddiisu ay asaga lacag ugu dhasho. Sidoo kale qoraagu wuxuu aaminsan yahay in lacag la arooriyo aysan macno samaynayn. Wuxuu isweydiiyey qoraagu, maxaad lacag u aroorinaysaa adigoo og in lacagtu ay tahay warqad ay dad soo daawacaan? Macquul miyaa in wax aad aroorisay ay la tartami karto warqadaha uu mashiinkaas soo daawacayo? Qoraagu waxa uu nagula taliyey in lacagta aan haysanno aan ku bixinno meel aan lacag ka helayno, meel aad hal mar lacag ku bixinaysid kadibna mar walba adiga lacag kuu soo celinaysa. Maanta kadib waxaan rajaynaynaa in aad noqoto qof arrimahaas ku baraarugsan oo aan hadhowta ka qoomamayn doonin insha Allah. Muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay. Waa inay muuqaalkeenna xiga.